كاميريستان كهاتر كاميريستان محل جودا محاسمينه بارو قرا markii saas u dhaay waxa laga rabaa inaad duubtid markii jugdhaa in duubtay laga rabaa hadhow waa laga rabaa mid ka mid ah muuqaal duubayaashii shabakadda argagixisay Al-Kataib ayaa halkan looga xisaabinayaa dhagarihii uu qaybta ka ahaa iyo dembiyadii uu gacantiisa ku geystay eedeysana Siido Nuur Maxamed oo magaciisa qawaarijku yahay Jacfar waa jabhad argagixisada u qaabilsanaa duubista dagaalada gaadmada ah isagoona muuqaal duuba ka ahaa dagaalo dhowr ah oo ay ka mid yihiin kuwa ka dhacay deegaanada Sabiid iyo Caanoole ee gobolka Shabeellaha Hoose waxa kale oo uu ka soo shaqeeyay qaybta qaraxyada sahanka kala gudbinta naftood haligiyaasha iyo sidoo kale geentooda goobaha ay isku qarxinayaan kamid ahaanshihiisa qawaarijta ayaana ku timid tashkiilinta Yuusuf Ibraahim Xasan Tabliiq oo xukunsana xabsiga dhexe ee xamar ku jira aan hor shaqo waa galay madiidini laakiin mar hore ay ugu dambeysay oo soo baxa waa lagu tashkiilay deegaanka Calash Biyaha waa lagu tashkiilay yaa ku tashkiilay Yuusuf Liiraad oo hadda xiran waa baxay kadib uu fulaa aaday waa soo laabtay waxa ligii ii sheegay deegaanka Jambaluul ragaas lagu tiriyay ka markii ta ku qaaday tababarka iyo sheekadan meesha ku qornaa tababarka boolo fulaa dacbilood ما يقفاه 70 qof kadib waa soo tababarnay anigoo 8 qof waxana la geeyay deegaanka Jambaluul ana la geeyay dagaalan galnay Sabiidi Caanool dagaalkaas waxaan ka ahaa kaamirista aan ka ahaa kadib dagaalka markaan soo dhamaaday waa soo baxnay dagaalkii markii soo dhamaaday kadib waa soo baxnay haradii ay imaan jamadii هذا مركب إيماني أبارة جوي وحالي وده حساب جوده ولا قاب بدلا ساعتنا قبلها وحكي ترسم دايرك متفجرات على الله كدي مش ولا هو موارا ليجي أنا بس مش موارا ليجي أسيء وشغينا على الله عمرا موتفق أنا وسوق ده شغله أنت أسوأ أيه ديارو أنا أيه أنت مركب موتوينا سوق ده أوكي قيبت مركب كاميريستان كهاتر كاميريستان محل جودا محاسمينه كاميريستا دغالك markii la galay qaabka loo duubaa si qaabka waxa waa arada tusaalaan taamal waa marka riga basaan urdan kaamirsan loo duubaa askarta dilaayo askarsan kaamirsan oo qoona dhashiika meesha ku soo dhacay qoryaashu waa meesha ku soo dhacay aan duubaan markii koowaad baa qarax galay meesha baarka qarax markii saas u galay kadib aan ii sheegay baarka qarax markii saas u dhaay waxa laga rabaa inaad duubtid markii jugdhaa in duubtay laga rabaa hadhow waa laga rabaa hay qaabkee u duubay marka kaamirista tahay waxa istaagay meel banaan istaagay kaamirista 4 shaqo amal waa hal qof kaliya ma meelay kala qaabilsan yahay dhan ani waxaan qaabilsanaa meelaha dhashiika bad oo askarta dawladda badka soo ridana qaabilsanaa markii meel adkaato kameraan ku fiirinaa doobirna waa wata fiirinaa markii saas u fiiri meesha dhishika soo dhacdaan leeyahay kadib sawir la gurida ama la iska dhaafaa taasaan qabilsanaa waxaan duubay dhishiko meel ku soo dhacay askar dhaawa iyo alaab qaniimada soo qaadaan soo duubtaan inta kalena waa iga lahaa adiga markii ku bar kamerada see ku barteen qaabka lagu baray yaa kamerada markaas tahayne markaas jabada markaas ayaa ku bar kamerada marka kamerista waa la soo baray qaybta kamerista ay soo bareen fartan bari soo barnaa marka markii qaraxida markii waa lagu wareejiyay maxaa lagu baray markii qaraxida lagu wareejiyaa qaraxida la baray bis baash miinada lagu keena qaabkii loo abeena loo diyaarinayo lagu tusaa korindooyin qaabkii loo kala xirayo lagu tusaa shaqadii ugu horeysay ee qawaarijtu u qabtay ayaa ahayd in loo dhiibay miino la rabay inuu dhigo maqaayad ku taala ceelasha biyaha inkastoo ay u qarxi weeday markii uu ramuudka taabtay waana kan ku xigeenka xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida laba xidigle Cabdibaasid Maxamed Yuusuf Madaale oo ka sheekeynaya shaqooyinkii uu qabtay intuu kooxda ka tirsanaa isagoona maxkamadda u soo bandhigay eedeysanaha dhaqdhaqaaqa taleefankiisa gacanta xiriiro uu la yeeshay horjoogayaal iyo xogo kale waxaa looga bilaabay shaqo uu qabto qaybta qaraxyada shaqada wuxuu ka shaqeyn jiray foorno kaas oo waxa uu sameeyay Yuusuf oo ahaa mulkiilihii foornada ayaa wuxuu u dhiibay shaqada ugu horeysay loo diray waxa loo dhiibay miino
miinada intuu geenay wuxuu geenay maqaayad foornada ka soo horjeedo oo dariskiisa waa u qarxi weeday habeenkii ku xigtay ayuu furay oo uu soo qaaday uu soo celiyay horta shaqo oo uu qabto khawaarijta halisteeda iyo culayska uu leeyahay eedeysanahan waxa muujinayso shaqadaas oo ugu horeysay oo isagoon aqoon lahayn indhaha lagu kala furay kadib ayaa waxa dhacday in tababaro loo diro oo qaybo kala duwan uu ka soo shaqeeyo sida jabahadaha markii ugu dambeysay hadda gacanta lagu dhigana waxa uu ka shaqeynayay inta uu ka been sheegay ahayd qiraalkiisa waxa uu ka shaqeynayay amniyaadka ka howlgala labada gobol ee kala ah gobolka Shabeellaha Hoose iyo gobolka Banaadir eedeysanaha oo degmada Garas Baalley ee gobolka Banaadir lagu qabtay 6dii bishii 7aad ee sanadkan ayaa gacmihii hay'adaha ammaanka ay qabtay waxay maxkamadda la wadaageen sida uu gacantooda ku soo galay oo 4tii bishii 7aad Julaayo 2024 maalin Khamiis ah xilli 4 saac amal ahayd anoo gudanaya mid kamid ah waajibaadka qaranka ee ku guda jiray xirista kaamirooyinka iyo kormeerkooda oo taagan isgooska tabeelaha Sheekh Ibraahim ee degmada Garas Baalley ayaa waxa luuq igaga soo baxay ninkan aniga staafkayga oo taagan laamiga habraac waxa jira marka qof kasta oo markaa socdo habraac la marsiyaa jiro waa u yeeray marka askarta dhahay iga baara iisoo gudbi waa la baaray waa la soo daayay waxa ka arkay marka tazaczac badan iyo jarees iyo dhidid tir badan gooniya ula baxay askarta iska dheereeyay su'aalooyina weydiiyay marka oo ugu horeeyay magaciisa waxa uu sheegay Siido Nuur Maxamed 24 jir inuu yahay ku dhashay gobolka Baay haddana degan degmada Garas Baalley gaar ahaan Weedow su'aalooyinka intay socday cabsi badan ka dareemay askarta marka waxa ku amray waxa way xogeynta xafiiska waxa ku dhahay nima ku soo dhiibaa riboodka diyaari intaas wuxuu maleeyay marka wax kale magaas wuxuu yiri waa sheegaa ha igeen meel kale gooniya ula baxay gooni marka ula baxay wuxuu ii sheegay inuu kamid ahaa argagixisada shabaab oo ku biiray kaga biiray deegaanka ceelasha biyaha ku soo tababartay meel la dhahay Buulafalaay ee gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan oo kamid ahaa macaskarka jabhaadka dagaaladii oo ka qayb gala waxa kamid ahaa soo ii sheegay dagaalka Sabiib Caanoole si la mid ah waxa loo soo wareejiyay isla maktabka kadib maktabka amniyaadka iyo maktabka mutafajiraadka oo si kumeel gaar u la shaqeeyay labada maktabbo wuxuu sameeyay intuu riboodka ii waday marka waxa isdhahay maadaama meel laami la joogo riboodkiisuna xasaasi yahay ninkuna muhiim yahay bal xafiiska hal geeyo xogeynta ku celiyay waxa ku dhahay nina waxa ku soo dhiibaa qiraal ah riboodkiisa boobsi anigana ku imaanaa staafkayga mid kamid ah u dhiibay laba staaf u dhiibay waxa dhahay geeya degmada xafiiska hal geeyo riboodka la boobsiyo haddii ka fakadaan idinka ku bedela gacan bira waay shaqadii ahaaya soo dhameystiray riboodka inta laga diyaarinayo xafiiska ana tagay macluumaadka ugu badan iyo xogta ugu badan ana ka diyaari saasa waxa uu soo wareejiyay taliska baaraha kiiskan uga wakiilka ah hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ayaa galkan ku biiriyay natiijada baaristiisa ku-xigeenka xeeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida laba xidigle Cabdibaasid Maxamed Yuusuf Madaale ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanaha ay ku xukunto ciqaabta sharci ee uu mudan yahay waxyaalaha cajiibka ah oo aan eedeysanahan ku soo eedeynay waxay tahay wuxuu duubayay dhagar qabayaasha ama khawaarijta dagaalka ay kula jiraan ciidamada qaranka asagoo oo taasi macnaheeda ka dhigayay in dadka ka ah banaanka dagaalkan socda ay cabsi ka qaadaan khawaarijta ama uu ugu talagalay buunbuunin maadaama uu qaabilsanaa duubista muuqaalada ay galayaan jabhadda taasoo macnaheedu tahay inuu iibgeeyo ama kor u buunbuuniyaan afkaarta ay aaminsan tahay khawaarijta sidoo kalena ay isku dayayaan in looga cabsado ama afkaartoodu ay dad far badan ay qaataan oo banaanka ka ah dagaalka ay kula jirto dawladda khawaarijta arintaas cajiibka ah markaan ka imaano waxa kale oo muddo kadib sidoo jabhadii u joogay laga soo bedelay waxa ay ku tilmaamaan khawaarijta maktabka amniyaadka oo ah kooxaha fuliya dilalka iyo qorshayaasha iyo dhagarta gaadmada ah waxa la dhahay Imaw Mubaarak waxaana loo dhiibay furo gurigaas muxuu yahay mudane gudoomiye gurigaas waxa uu ku kaydinayay qaraxyada iyo hubka iyo shakhsiyaadka qaabilsan in ay qaraxyada fuliyaan ama iyagu ay isqarxiyaan iyo shakhsiyaadka qaabilsan inay fuliyaan dilalka gaadmada ah iyo sidoo kale
shakhsiyaadka u qaabilsan inay basaasaan xarumaha dawladda ama ciidanka qaranka ee dagaalka kula jira khawaarijta shakhsiyaadkaas inuu gurigaas ku gabaad siiyo ilaaliyo waxaa kale oo cajiib ah sida uu sheegay maxkamadda horteedana ka sheegay in amiirkiisii soo bedelay markaas inuu u sheegay shakhsiyaadkaas inuu qaado goobta ay rabaan uu geeyo kana soo celiyo asagoo loogu daray gaadiidkii uu ku qaadi lahaana loo diray lacagteeda uu gaday oo ah mootada labada lugood leh ee loo yaqaan mootofekon wuxuu u kala qaadayay shabeelaha hoose garasbaaley ka soo bilow shabeelaha hoose galwaaren baqdaad jambaluul shalaambood magaalada caasimadda ah marka la imaadana waxa uu keenayay afgooye marka la soo dhaafo degmada madiino oo labada degme u kala baxa wadajir iyo dharkeenley tabeelaha sheekh ibraahim ceelasha biyaha iyo garasbaaley intaasoo dhan waxa uu ku geenayay xubnahaas khawaarijta ka tirsan mootofekon waxaa kaloo loogu daray lama hadli kartid xubnahaas haddii aad la hadasho ama erey ama sheeko idin dhex marto ayaga iyo adigaba waxaa idinka soo gaari doonto arrin halis ah oo aad ku weyn karto naftaada mudana guddoomiye iyo garsoorayaal maxkamadda sharafta leh eedeysana siidow nuur maxamed jacfar laguma dayn karo ummadda soomaaliyeed dhexdeeda iskaba dhaaf ummadda in lagu dhex daayey maxaabiista xataa ku jirta xabsiga wuxuu ku yahay halis maxaa yeelay wuxuu u gafay qodobada kale ah lixaad faqradiisa labaad iyo faqradiisa saddexaad toddobaad sideedaad tobanaad koob iyo tobanaad labiyo tobanaad sideed iyo tobanaad iyo koob iyo labaatanaad xeerka la dagaalanka argagixisada qodobadaasi maxay sheegayaan mudana guddoomiye waxay sheegayaan qodobka lixaad ka bilaawno kamid ahaanshaha iyo qaadashada tababarada argagixisada labo samaynta iyo haysashada hubka ama agab lagu fulinayo fal argagixiso waa cadeynay ayadana waxaa kaloo cadeynay qodobka sideedaad oo ah uu jabiyey oo ah isticmaalka hubka waxaan kaloo cadeynay qodobka tobnaad oo ka hadlaya bixinta ama qaadashada tababarada argagixisada waxaan kaloo maxkamadda horteeda ka cadeynay gabaadsiinta shakhsiyaadka iyo qalabka loogu talagalay inay fuliyaan ama lagu fulinayo falalka argagixisada ah waxaa kaloo maxkamadda ka hor cadeynay asaguna afkiisa uu ka qirtay xayisiinta afkaarta urur ama koox argagixiso ah qodobka 18aad oo uu buriyay oo asna ah qayb ka noqoshada falal argagixiso qodobka 22 asaguna ka hadlaya gacasiinta iyo fulinta falal argagixiso intaas oo qodob oo aan ku soo eedanay mudana guddoomiye waa uu buriyay eedeysana mana jirto meel uu uga baxay sida uu maxkamadda horteeda ka sheegay waan ka soo tagay meel uu uga baxay oo uu ka soo tagay argagixisadana ma jirto waa la yaqaan qofka argagixisada ka nidaam uu leeyahay uu maraa mudana guddoomiye maadaama uu halista inta leeg uu leeyahay eedeysane sidoo nuur maxamed jacfar waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanaya in culayska duruufaha dambiyada duruufta cusleedsa dambiga ay u fiirsan maxkamadda sharafta leh oo lagu xukumo culayska ay dhigayaan qodobada aan soo tirinay ay ka bilaabmaan qodobka 6aad ilaa iyo qodobka 22aad ee uu buriyay eedeysanaha oo ciqaabtooda tan ugu culus lagu fuliyo maxkamadda sharafta leh waa mahadsantahay qareenka difaacayay eedeysanaha ayaa isna dhankiisa codsaday in muwakilkiisa loo xukmiyo inta uu qiraal ku yahay su'aalo badan ayaa waxaan su'aalnay baaraha iyo raggii soo qabtay haddii ay qabanayeen waxay ku qabteen oo lid ku ah amniga iyo saaca la joogo inuu shabaab yahay iyo in kale mudana guddoomiye garsoorayaal eedaysanuhu teleefoonaadkan iyo tasalsulkan xeer ilaalintu juhdi badan ay bixisee inuu shabaab ahaa jiriya asagaa qiraala xiriirna waa la yeela kariyaa ha dhowaado hase dheeraadee waa la yeela kariyaa su-aalan su-aala baaraha oo ah dhibaato uu geystay oo nafeed ama maaleed baaridaadii ma ku ogaatay waa ku ogaaday ogaashadii uu ogaadana wuxuu ku sheegay maxkamaddu waa ka war leedahee inuu gacansiin samey jiriyey oo dadka uu qaadi jiriyey eedaysanuhu shabaab inuu ku biira asigaa qiraalah inta kaleentood waxa waayey caddaymankooru ma tifaftirna maadaama shabaab uu ahaa jiriyey dariiqii loogu talagalana ounan marin wixii ay leedahay oo ciqaab ah
waa mutayse kariyaa inta kaleentood ma cadda si kaleer ah ama 163 waxaan codsanayaa oo maxkamadda mataqaan u soo gudbinayaa tii hore shabaabnimada dariiqi uusan soo marin cuquubadeera in ama lagu qaado ama looga naxariisto inta kaleentoodna ma cadda maxkamaddu waa mahadsantahay maxkamadda oo waqti ku filan siisay dhinacyada dacwadda ayaa ugu dambeyn waxaa soo xiray gaashaanle sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida cabdiraxmaan gacan warbaahinta qaranka muqdisho